وايو وسنتين وحوايد أنت إذا مش عاد إذا كويو خلاص أنا سن واحد ما أنت رنتي واحد سوق يعني مدرسة أختي وقدم بيس سياسة دي هذا أنا أنت عن حكم جوجلنا سنة في بركة waxaa ka soo talaabsanay runtii arrimo aad iyo aad xasaas u ahaa una baahnay deganaansho xasilooni siyaasadeed in loogu talaabsado marka maanta fiican ay wax soo gaareen oo rajaynaynaa inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii la yiraahdo inaan ku dhammaystirno dalkana u doorasho u dareeno waxaan rabaa maanta inaan runtii caddeeyo inaan musharax u ahay kursiga madaxweynenimo ee 2016 ka dhacay doorashada hadda ka dhacay doonta dalka afartan sano ay soo socota dalka kan wuxuu u baahan yahay runtii in la dhammaystiro waxyaabaha hadda qabyada ah ama dastuur ha ahaadaan ama amni ha ahaadaan ama arrimaha kaleeto ee xagga bulshada iyo dhaqaalaha si dalka kan umar u noqdo dal ummadda adduunka oo dhan ay danayso inay maal gashato timaado horumar taabagal ahna u gaaro ogsoontihiin waddanka wuxuu soo maray dhibaatooyin aad u badan runtii marba meel baa taagnaa halkii sano iyo barkii aan annaga hadda xukuumadda haynay waxaan samaynay buug baana ka daawacnay waa idin la wadaagi doonaa haddii la yidhahdo intii xukuumaddan qabatay waxa socda waxa aqabsoon waayey waxaanse rabaa inaan idiin sheego sanadka kan in yacni doorashadan iyo afartan soo socotaba ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabageliyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 hal qof hal cod doorashadeeda in la gaaro haddii siyaasad isqabsi ay dhib kale timaado waxay noqonaysaa afartan sano kaleeto in waxyaabaha qaarkood laga gaaro wuxuu u baahan yahay dalka kan in arrinta wada ogol wax la dhaho yacni in dadka Soomaaliyeed la isku wado si ay furo ugu noqoto amni astaan qaran leh ee dalka kan runtii hanta aan uga maarano uga qoftoonno ciidamada shisheeye ee dalka jooga waxaasan oo ah amni waa la samayn karaa laakiin waxaa markasta muhiim ah dalkanka siyaasadiisana inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayn ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala si loo helo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta marna badahaas aadaya marna yacni dadkan xaq jirka ah ee fikirka khaladka qaarkood ee aadayaan in loo furo fursad ee runtii mustaqbalkooda ka dhex arkaan dalka gudihiisa annaga dawladda waxaa nagama jiraan dalkan dalqana weeye mustaqbalkiisa iyo wixiisoo dhan runtii wuxuu ummadda Soomaaliyeed ee ku nool jiilka jiil runtii gaarsiin karaa yacni heer adduunyada kaleeta ay ka hormaraan waxaa intaas naga taagnaa waxay ahayd siyaasadda annaga dhexdeena ah oo markasta khilaafka imaanayay markastana maaragtay yacni meeshii la rabay iyo hadafkii markasta 4 sano lagu talagalay la gaarin sideeda waxay la tahay in khibradda looga baahan yahay maanta in dalka lagu gaarsiiyo hal qof hal cod iyo hoggaanka loo baahan yahay in dalka kan amni looga qaaftoomo ciidamada shisheeye iyo lagu gaarsiiyo runtii dhaqaale iyo horumar dalka kan dhalinyaradiisa ay ka dhex arkaan mustaqbalkooda inaa intaba leeyahay waqti badan hadda aan kusoo jeedin siyaasadda Soomaaliyeed taasna runtii aan isleeyahay maanta ka dambeeya haddii la yidhahdo hoggaanka dalka ay ku sugan madaxweynenimo inaan ummadda Soomaaliyeed isku nahayn karo isku daaweyn karno insha Allah aan gaarsiin karnana hadafka loogu talagalay ee ah doorasho hal qof hal cod marka waa mahadsantihiin markii madasha aan dhammayno waxaan idin wadaagi doonaa madasha waxa ugu dambeysay ee caawa ay soo saaraan afartan maalmood ee socoto ay soo saaraan kadibna waxaan rabaa mar insha Allah inaan idinkoo dhan wada shiriyo oo aan barnaamijka buuxda iyo yacni hadafyada iyo sida loo gudbiyo afartan sano inaan ayadoo detail ah ama iyadoo tafaftiran aan idin soo dhigo insha Allah marka waa mahadsantihiin intaas way ahayd inaan musharaxnimadeeda ku caddeeyo maanta waana idinka runtii cudurdaaraya waqti aan joogteen aad iyo aad mahadsantihiin waqtiga aad siyaasadda ku fashiltay fog tahay fursad wanaagsan baa soo heshay wasaare ku noqotay 9 sano waxaad qaban weyso ku dhawaad oo maanta inaad qabataan maxayta dalka kan labadii mar aan soo maray marna waad ogeedeen waqti TFG iyo waxay ahayd maxkamadda islaamiga ahaa ee heshiiyeen ma sahlaneen in laba qolo oo aan dagaal ku kala adkaan
in inta xukuumad ay wadaagaan runtii dalka kan ay gaarsiiyaan siyaasad meeshii loogu talagalay haddiise laga qaadi kara ay gaaraan waqti aad u adag ahaa waxaan filayaa halkaas sano iyo marka ama labadii sano hore aan ahaa rasaarahana runtii inaan labadaas qolo maanta aan mideeyey mataaneeyey dalkana runtii aan ka soo saaray xilli adag haddana sidoo kaleeto laba xukuumadood ayaa iiga horreysay wax badan oo laga gaabiyey annaga markaan imaanay maalintaan imaanay waxaa gacanta naloo geliyey yacni wax laga gaabiyey iyo wax eed ka imaanayso saasoo ay tahay waxaan ka tallaabsanay arrimo badan oo siyaasadeed maadaama hal qof hal cod aan la gaari karin u baahnaa dalka kan inuu wadan ogol laga keeno qaylooyin badan waa dhaceen waxaan ku dadaalnay qaylooyinkaas dhinaan xasilino maanta meesha ay taagan yihiin wax kasta ha la sheego runtii waa meel ummadda soomaaliyeed ay ka amba qaadi karto dalkana ka hagaaga marka waa mahadsantihiin waxaan rajeynayaa waxaa weeye madasha waxyaabo yaryar wey runtii hadda qodobada hale wax weyn maaha wixii badanaa siyaasadeed waa laga soo gudbay waxaasan waxyaabo yaryar oo sixitaan u baahan laakiin arrimihii badanaa laga soo gudbay arrinta ugu muhiimsan oo hadda aan ka hadlayna waa arrinta amniga iyo sidii adigu amniga saldhigga amni loo dhisaysan lahaa marka waa mahadsantihiin marka labaad oo aan soo noqdo haddii leeda ay nala qaybsanayo programka ayaan runtii su-aalo idiin furi doonaa program buuxa ee ku wajahan 4 sanana aan isoo fadhi doonaa waa mahadsantihiin